Mr. Michael Woolis bal marka hore nooga waran ergooyinka jooga Somaliland ee ka yimi caalamka iyo sida doorashadu ay u dhacday maalintii Isniinta. waxaanu ahay 60 ergey oo ka kala socda caalamka. dawladda Ingiriiska ayaa fangaraysay in kasta oo ay ergooyinku ka kala yimaadeen wadamo kala duwan oo caalamka ka tirsan. waxaanu aad ugu faraxsanahay inaanu goobjoog u ahaano guud ahaan sidee u dhacday doorashadii shalayto ka qabsoontay guud ahaan Somaliland, xudun laascaanood Ceerigaabo iyo miyiga fogfog iyo guud ahaanba magaalooyinka waaweyn. waxaanu goobjoog u ahay in codbixin si wanaagsan u dhacday guud ahaan dalka. waxaa dhibaato ah oo ka dhacdina ma jirto, waananu ku faraxsanahay arrintaasi. Major problems, there wasn't any violence or conflict. So from that point of view, I think the observer mission was one that went well. We were very happy with it. Mr. Michael, waxaad goobjoog u ahayd doorashooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Somaliland. maxaad is leedahay doorashadan way kaga duwan tahay doorashadii 2010? I guess in some way every election is different. The biggest most obvious difference is that the last election was a local council election in 2012. The 2010 election with a presidential vote. In some ways, those two are the more similar because the vote is simple. It's simply a selection between the three parties. doorasho kasta way ka duwan tahay doorashada kale. labadii doorasho ee ka horreeyay doorashadan, tii golaha deegaanka ee dhacday 2012 iyo tii madaxweynaha ee dhacday 2010 waxay ahaayeen kuwo isku dhow ama isku mid ah. labaduba diiwaangelin way lahaayeen, laakiin tani way ka duwan tahay oo waa mid ay dadku ku kalsoon yihiin inay tahay xor iyo xalaal, maadaama ay ka casriyeysan tahay qaabka dadka loo diiwaangelinayay oo uu yahay mid aan qofku laba goor codayn karin amaba uu ku celin karin. midda kale waxay uga duwan tahay dadka reer Somaliland way koreen oo way la qabsadeen doorashooyinka iyagoo si weyn ugu diyaar garoobay doorashadan dhacday maalintii shalay. midda kale waxaan odhan lahaa Somaliland khibrad badan ayay ka heshay doorashooyinkii badnaa ee ay ka qabsadeen. taas ayay u suuro gelisay inay si fiican u maamulaan doorashadan. So that practice means Somaliland is getting better technically at managing elections, which is good to see. Somaliland waxa ay dareemaysaa in dimuqraadiyadda ka jirta ay tahay mid ka horumarsan tan ka jirta dalalka bariga dhexe iyo wadamo badan oo Afrika ah. runtii nin in badan ku soo jiray baa tahay arrimaha siyaasadda Somaliland. maxaad is leedahay oo guul ah bay u soo kordhinaysaa sida fiican ee doorashadu uga dhacday Somaliland markaan ka eegno dhinaca dimuqraadiyadda? I think Somaliland has done really amazingly well. It's very difficult to establish an effective, whatever the issues of international status, it's an effective, peaceful area with a government which is... aad ayay u dadaashay Somaliland. waa wax weyn inaad dhisato dal degan oo dawladdu ay ka shaqaynayso. taas ayay ku guulaysatay Somaliland. ilaa iyo 1997kiina wax dhibaato ahi kama dhicin halkan. waxaa intaa dheer Somaliland waxaa ka dhacay doorashooyin dhowr ah oo guulaystay, kuwaas oo u dhacay si guul ah. dabcan wax hawl yar ma aha in doorasho aad og tahay inay tahay mid madaxweyne lagu dooranayo oo qiimahaas leh la qabtaa oo ninna ku guulaysanayo ninna ku guuldarraysanayo. taas ayaa Somaliland u suura gashay, waana wax la yaab leh inay ku guulaysato. The fact that Somaliland has done that not just once but many times is really significant. It's a big achievement. Mr. Michael, Somaliland muddo 26 sano ay raadinaysay i'tiraaf. ilaa iminkana adduunka ma aqoonsana. ma isleedahay shantii doorasho ee hore uga dhacay dalka iyo habsami u socodka dimuqraadiyadda ka hirgashay Somaliland waxa ay ka taraysaa in aqoonsi buuxa ay hesho Somaliland? You know, I can't make the decision because I'm not in that position, but I would say that certainly the fact that Somaliland is able to achieve what I was just talking about, this ability to hold elections, to be peaceful. anigu waxba kama qaban karo shakhsiyan, waayo awood uma lihi. laakiin waxaan aaminsanahay deganaanshaha iyo dimuqraadiyadda dowladnimada shaqaynaysa ee ka hana qaaday Somaliland waa wax aad u cajiib ah. waana arrimahan hore uga hadlay
waxa inala jooga diblomaasiyiin caalami ah saxaafad caalamka oo dhammaantood eegaya sida doorashadani u socoto haddii Somalilan halkaasi ka sii wado dawlad wanaagga dimuqraadiyadda nabadgelyada waa wax weyn isla markaana waxay wax weyn ka caawinaysaa in adduunku u soo jeesto Somalilan waan qiraya in 26 sano waqti dheer ay tahay dadkuna way ka cawdaan in aan weli loo soo jeesan Somalilan laakiin way muuqataa in dalkani joogo heer wanaagsan oo caalamku si dhow u eegayo doorashadii ka dhacday Somalilan maalintii shalay ma la oran karaa waxa ay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah We can't say that it's fair and free or fair until the whole process is completed. So at the moment we have still observed ergooyinkii ku maqnaa degmooyinka iyo gobolada iyo meelaha fogfog marka ay soo noqdaan ee aanu warkoodana helno maalmaha soo socdana aanu eegno siday hawshu u dhacday iyo arrimaha ku xeeran doorashada ayaanu sheegi karnaa in doorashadu ay ahayd mid xora oo xalaala hadda wax badan kama sheegi karo waayo hawshii may dhammaan laakiin ilaa hadda siday hawshu u dhacday aad baanu ula dhacsannahay sidaan hore kugu sheegay So for us, we were very happy to be able to mount that observation in a peaceful environment with the observers able to go about their business as they were required to do. So I think that's a good basis, but the actual assessment of the election itself needs to wait for a few more days.